Asalaamu calaykum kusoo dhawaw channelkayga magacayga waa Ifraax youtube-ka daaweynaysan waa Ifraax Home Decor haddii taa markii ugu horeysa channelkayga soo booqatay kusoo dhawaw hanaga ilowin inaad subscribe dhahdid like and comment haddii aad hore noola joogtana welcome back su-aasheeda maanta waxaa waaye ma jeceshahay nadaafadda jawaabtaada waxaan u maleynayaa inay haa tahay sababta ma jiro qof neceb nadaafad la-aanta videogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay deep cleaning guriga iska hagaabeynayna haddii aad caajisan tahay caajiska allah kaa qaado ka kac hurdada ka kac kaale guri ila hagaaji ila nadiifi dharkii lasoo dhaq yaa maanta insha allah videogeena waxa waaye deep cleaning waaye saa arkaysaan hadda waxaan ku bilaabay qasaalada dharka beebiga soo dhaqay isla markii waan laalaabay qasaalada kusoo laalaabay marka qasaalada ka imaaday saacad way igu badatay waxay noqotay xilli qado soo qadada soo sameeyay qadada soo cunay alxamdulillah ilaahay hanoo daaweeyo qada markaa soo dhameyn waa kan alaabta kusoo qadaynaya hadda raacsiinaya aan nadiifinaya isla markii haddana waa kana meesha oo cuntada ku kariya waa jeedimayno wasaq waa marka waxaa waa inaa hadeeyo videogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay inaa deep cleaning waayo guriga waxay la hagaajin doontiin qolka fadhiga qolka oo baybigayga zayn iyo jikada insha allah walaal hurdada ka kac soo kac guri ila hagaaji ila nadiifi videogana ha ku noqdo video dhiirigelin ah I hope inaa ku caawiyo si oo yacni hoosh iskula qabano ya girl soo kac waan isla soconeynaa insha allah let's go. asxaabe is arkaysaan hawsha way socotaa insha allah waxaan rajeynaynaa na iga caajisin oo videoga aad daawanaysiin inay motivation ii noqoto aa hagaajisanaysiin adinkana gurigaas ka nadiifinaysiin waa arkaysaan meeshan waxa waaye in badan lama hagaajinin just waa loo imaan jiray lebis buwaaga laga aqrisan jiray waa laga tegi jiray albaxan aad u culus yahay waxaa rabay inaa darbiga ku dhajiyo laakiin culayskiis dartiis darbiga inaad duleeliina ma rabin warqad waxaa soo gaday oo type ah oo lagu dhajiyo markaad aad u culus waa soo dhacaysaa darbiga ku dhajiyo waa soo dhacaysaa meeshaad iska gadaayay haddii lacag ku fikiraysiin marka waa arkaysaan saa u nadiifin way meesha waxa waaye kaloriin iyo adduunyo isku soo dardarsaday waxa waaye si fiican inaan u nadiifiyo alwaaxan waxa waa cunugayga maxaa lahay ilaahday qalin iyo wax ku qorqoray iyo wasaq kale iska gaartay gacan iyo akana nadiifina ma fahantin armaajadan waxa waa dharkii oo soo dhaqay ku ratibay marka iyada gudaheeda inaan nadiifiyo hada ma ugu talagelin just waxa waaye banaankeedan ka tirtira
Marka asxaabteeda qaaliya way la socotiin oo maleynaa hadda waxaan bedelayaa kaararka oo ilmaha markay dhashtaan ilaa sanadka ay gaarayaan loogu talagalay. Waa kaar iska caadi ah adiga waxyaabo badan ku qoran. Waxaa ku qoran markaa dhashtay, markaa soconayay, markaa guriga imaaday, adiga waxa waaye iska caadi ah. Marka maalin hore wuxuu dhahay mama masha Allah ilaahay barakeeyo wiilkayga. Mama baba waa hadda dhadhowaya laakiin waxa waaye wax kasta ilaahay xaqiisa ka qoran yihiin. Marka wax iska caadi ah. Marka hadda waan bedelay waxaan bedeli rabaa hadana daah waxaan rabaa inaan cadaan ka dhigo. Kalarkaas hadda ayaan badan oo noogu aalay waa ku daalnay ma fahanteen. Kalarka cadaan ah hadda ku soo dejinoyaa meelan kor ayaa ku dhahay kaaliska arag. Waxa waaye waa la shaqeysanayaa maanta shaqada adduunka jirta guriga. Markaa daah soo raxeeyay huufurkayga soo qaatay. I love this huufurkaan aad u jeclahay. Waxa waaye inkil waaye wax oo fiila iyo wax markaa ka daba jiidmaayo. Charger uu leeyahay sida telefoonka camal u chargereynaysaa. And then waa isticmaalaysaa ilaa meel alla meesha rabto la tagi kartaa. Marka wallahi I love it. Hooyooyinka waa ugu tali lahaa inay soo gadatiin. Soo dhigaa meesha ka gadan kartiin. Waa kaya asxaabay maanta hawsheena noo socoto. Ila socdaa waa kana sidaan ka soo dhigay. Kalarka cadaanka waa ku soo baxay masha Allah qurux. Inaba caadi maahan waan jeclaa kalarka. Masha Allah walaalahayga qaaliga waa arkaysaan hadda qolkasaan u soo habeeyay. Waa simple and easy wax badan soo isticmaalin. Just wax iyaaleen la soo isticmaalay soo tutusi barkimaha. Marka insha Allah adinkan waxaan rajeynaynaa videogan ka hesheen motivation fiican ku qaadateen. Marka insha Allah dhiirigelinta wax wanaagsan waaye. Haddii caajisan tahay waxaan rajeynaynaa videoga marka daawatay kadib inaa fadhiga kici doontid insha Allah. Marka asxaabteeda qaaliga waxaan rajeynayaa bash iyo barwaaqo caafimaad aan dhamaanin walaasheeda macaaneed. Waxa waaye walaal adduunka lagu yahay ma fahanteen. Marka insha Allah waxaa kaloo rabaa inaan sheego hadda channelka ka heshid subscribe hanaga iloowin share family-ka asxaabta qaraabada intaba la share gareey. Sidoo kale waxa waaye haddii aad ra'yi haysid ama jeclaan lahayd channelkina wax ku soo kordhiyo ama su'aalaha qabtid intaba igu la soo xiriir ayuunba wax lagu yahay. Marka insha Allah waxaan rajeyn doonaa in video ka heshay commentiga qurux badan iyo like iyo subscribe intaba xageena waaye walaalahayga qaaliya. Channelkan inta ku soo kordhi lahaa ahdaa wax deep cleaning-kan oo kale ka heshid intaba diyaaran ilaahay ani wax ma diidayo ma fahanteen. Hadii oo xataa mar qaarkood oo rabtiin videoyaal musnaan oo hadalkayga ku daasheen xitaa waan la sameynaa wax kasta ani ma diidayo ma fahanteen. Insha Allah walaalahayga waxaan rajeynayaa bash barwaaqo. Marka videoga inta ku soo gabagabeynaya insha Allah hadda waxa waan nasiinaan qaadanaa gurigan waan nadiifiyay. Maantani intaas ahayd inta qawaneynay videoyaal badan soo wadaa insha Allah videoyaasha kalena waa ka heli doontiin rajeynaa. Marka insha Allah waxaan iga tagayaa sida nabadgeliyo inta xanuunsan Ilaahay caafiyo inta caafimaad qabtan Ilaahay caafimaadka u siyaadiyo. walaal qaaliya hadda wali subscribe na dhihin subscribe like commentiga